waxay noo sheegeen daktarha iyo nurseska iyo respiratory therapy aan ahay qofka ugu hore aan noqonaynaa inaan soo helno vaccineka because dadka covid haystaan iyo dadka jiran wax badan aan la shaqeynaa qofka ugu hore inaan noqono waayo saas ay iga waceen waxay maalinta koobaad manoo imaani kartaa markaan imaado waxay dhahin anaan kula hadlaan rabnaa markii ila hadleen wax yar waxay i weydiiyeen su-aale i weydiiyeen maxaa qaadanaysaa vaccineka maxaa ka rabtaa vaccinekan waxaan u sheegay waxaan dhahay inaan example noqo aan rabe oo maalintii wax badan ee umalaynaan inay vaccineka soo xun yahay waxaan rabe communitykeyga inay arkaan qofkan vaccinekay qaadanaysaa iyo way soo fiicnaan zahra waxay ga warantaa markii lagu dhahay qofka koowaad ma noqonaysaa oo su-aal lagu weydiiyey oo aada aqbashay cabsi intee la-eg ayaa dareemaysay inaad noqoto qofkii ugu horreeyey ee gobolka alberta tallaalka covid 19 la siiyo may cabsi ma dareemaayeen wax yar waa iska naxay because ma umaleeya inaan qofka ugu hore noqonayo waa iska shaqadeyda shaqadeyda waaye inaan dadkan la shaqeeyo inaan dadka jirin la shaqeeyo so markii ii sheegeen vaccineka helaysaa waxaan dhahay wax caadi waaye so markii ay dhaheen qofka ugu hore aa noqonaysaa cabsi ma dareemin laakiin waxaan dhahay dad badan camera badan ayaalayaan interview badan ay ku sameynayaan newska aadaysa markaa saas ii dhaheen wax yaraan aan iska qabtay waxaan dhahay hooyadeeda hadday argtay gacanteeda inuu national tv qof kasta arkayaan way xanaaqeen waas ka sameeya waad ka aqbashay marka in lagu tilaalo laakiin cabsi yaraa jirto sida aad sheegtay maadaama warbaahinta dhan ay halkaa joogtay oo qofkii ugu horreeyey maadaama aad tahay ku wareysanayaan oo wadankii dhanna laga baahinayo adigoo talaalka lagu siinayo sax si wanaagsan waan gartay marka waxaad iga warantaa waxaad sheegtay hooyada inay yara diidaneed in warbaahintiiyo joogta meesha adigoo garabka laga tallaalayo oo garabkaaga la arkayo in aysan yara jeclaysan markii horeba sideedaad ugu qancisay hooyo inaad noqoto qofkii ugu horreeyey ee tallaalka covid 19 la siiyo ee gobolka alberta qofka ugu hore maxaa noqonaya dhahde qofka ugu hore maxaa noqonaya saas ay dhahde waxay dhahtay dadka oo daqooda way iska qaadi karaan laakiin dhalinyarada inay iska jiraan waayo because facebookay ka maqashay dhalinyarada wuxuu joojinaya inay ilmo dhalaan waxaan u sheegay hooy macaan ilmaha ilaahay oo ka imaadaan so waxyaala badan aad jooji karo like researchka baarista waxna maka helen inuu vaccinekan joojinayo inaa ilmo dhali karto zahra soomaalidu way ka baqaan tallaalka badankood iska daa covid 19 waxaa la sheegaa in kan loo qaato hargabka flu shotka laftiisu inaysan u badnayn dadka inay qaataan oo soomaalida ay ku yartahay inay qaataan soomaalida inaad adiga noqoto qofka ugu horreeyey oo gobolka dhanba alberta tallaalka la siiyo fariin noocee bay u gudbinaysaa jaaliyadda soomaalida dadka see loo sheegay ha ka cabsanin tallaalkan ma aqaan because communitiga waa taqaantaa dadka like sidaa u sheegtay hataa kan caadiga ma qaadanayaan so kan haddaynan qaadanin like wax badan kala xun soo imaana hadda edmonton kaliya iyo xataa calgary meelaha oo covid ugu badan waa north eastka waa meelaha soomaali ay ugu badan yihiin so dadkeena ina talaalkan qaada ka fiican laakiin waxay noo sheegeen daktarha iyo nurseska iyo respiratory therapy aan ahay qofka ugu hore aan noqonaynaa inaan soo helno vaccineka because dadka covid haystaan iyo dadka jiran wax badan aan la shaqeynaa qofka ugu hore inaan noqono waayo saas ay iga waceen waxay maalinta koobaad manoo imaani kartaa markaan imaado waxay dhahin anaan kula hadlaan rabnaa markii ila hadleen wax yar waxay i weydiiyeen su-aale i weydiiyeen maxaa qaadanaysaa vaccineka maxaa ka rabtaa vaccinekan waxaan u sheegay waxaan dhahay inaan example noqo aan rabe oo maalintii wax badan ee umalaynaan inay vaccineka soo xun yahay waxaan rabe communitykeyga inay arkaan qofkan vaccinekay qaadanaysaa iyo way soo fiicnaan zahra waxay ga warantaa markii lagu dhahay qofka koowaad ma noqonaysaa oo su-aal lagu weydiiyey oo aada aqbashay cabsi intee la-eg ayaa dareemaysay inaad noqoto qofkii ugu horreeyey ee gobolka alberta tallaalka covid 19 la siiyo may cabsi ma dareemaayeen wax yar waa iska naxay because ma umaleeya inaan qofka ugu hore noqonayo
waa iska shaqadeyda shaqadeyda waaye inaan dadkan la shaqeeyo inaan dadka jirin la shaqeeyo so markii ii sheegeen vaccineka heleysaa waxaan dhahay wax caadi waaye so markii ay dhaheen qofka ugu hore aa noqonaysaa cabsi ma dareemin laakiin waxaan dhahay dad badan camera badan ayaalayaan interview badan ay ku sameynayaan newska aadaysa markaa saas ii dhaheen wax yaraan aan iska qabta waxaan dhahay hooyadeeda hadday argtay gacanteeda national TV qof kasta arkayaan way xanaaqeen bas ka sameeya waad ka aqbashay marka in lagu tilaado laakiin cabsi yaraa jirto sida aad sheegtay maadaama warbaahinta dhan ay halkaa joogtay oo qofkii ugu horreeyey maadaama aad tahay ku wareysanayaan oo wadankii dhanna laga baahinayo adigoo talaalka lagu siinayo sax si wanaagsan waan gartay marka waxaad iga warantaa waxaad sheegtay hooyada inay yara diidaneed in warbaahintiiyo joogta meesha adigoo garabka laga tallaalayo oo garabkaaga la arkayo in aysan yara jeclaysan markii horeba sideebaad ugu qancisay hooyo inaad noqoto qofkii ugu horreeyey ee tallaalka COVID-19 la siiyo ee gobolka Alberta qofka ugu horreeyay maxaa noqonaya dhahday qofka ugu horreeyay maxaa noqonaya saas ay dhahday waxa dhahday dadka oo dhaqooda way iska qaadi karaan laakiin dhalinyarada inay iska jiraan waayo because Facebook ay ka maqashay dhalinyarada wuxuu joojinaya inay ilmo dhalaan waxaan u sheegay hooy macaan ilmaha ilaahay oo ka imaadaan so waxyaalo badan aad jooji karo like researchka baarista waxna maka helen inuu vaccinekan joojinayo inaa ilmo dhali karto Soomaalidu way ka baqaan tallaalka badankood iska daa COVID-19 waxaa la sheegaa in kan loo qaato hargabka flu shotka laftiisu inaysan u badnayn dadka inay qaataan oo Soomaalida ay ku yartahay inay qaataan Soomaalida inaad adiga noqoto qofka ugu horreeyay oo gobolka dhanba Alberta tallaalka la siiyo fariin noocee bay u gudbinaysaa jaaliyadda Soomaalida dadka see loo sheegay ha ka cabsanin tallaalkan ma aqaan because community waa taqaantaa dadka like sida u sheegtay hataa kan caadiga ma qaadanayaan so kan hadaynan qaadin like wax badan kala xun soo imaana hadda Edmonton kaliya iyo xataa Calgary meelaha oo COVID ugu badan waa North East waa meelaha Soomaali ay ugu badan yihiin so dadkeena inay talaalkan qaada ka fiican laakiin waxay noo sheegeen daktarha iyo nurseska iyo respiratory therapy aan ahay qofka ugu hore aan noqonaynaa inaan soo helno vaccineka because dadka COVID haystaan iyo dadka jiran wax badan aan la shaqeynaa qofka ugu hore inaan noqono waayo saas ay iga waceen waxaad maalinta koobaad manoo imaan kartaa markaan imaado waxaad dhahin anaan kula hadlaan rabnaa markii ila hadleen wax yar waxay i weydiiyeen su'aalo i weydiiyeen maxaa qaadanaysaa vaccineka maxaa ka rabtaa vaccinekan waxaan u sheegay waxaan dhahay inaan example nasoo aan rabe oo Somali community wax badan ee u malaynayaan inay vaccineka soo xun yahay waxaan rabe communitykeyga inay arkaan qofkan vaccinekay qaadanaysaa iyo way soo fiicnaan Zahra waxay ga warantaa markii lagu dhahay qofka koowaad ma noqonaysaa oo su'aal lagu weydiiyey oo aad aqbashay cabsi intee la-eg ayaa dareemaysay inaad noqoto qofkii ugu horreeyey ee gobolka Alberta tallaalka COVID-19 la siiyo maya cabsi ma dareemayen wax yar waa iska naxay because ma umaleeya inaan qofka ugu hore noqonayo waa iska shaqadeyda shaqadeyda waaye inaan dadkan la shaqeeyo inaan dadka jirin la shaqeeyo so markii ii sheegeen vaccineka heleysaa waxaan dhahay wax caadi waaye so markii ay dhaheen qofka ugu hore aa noqonaysaa cabsi ma dareemin laakiin waxaan dhahay dad badan camera badan ayaalayaan interview badan ay ku sameynayaan newska aadaysa markaa saas ii dhaheen wax yaraan aan iska qabta waxaan dhahay hooyadeeda hadday argtay gacanteeda national TV qof kasta arkayaan way xanaaqeen bas ka sameeya waad ka aqbashay marka in lagu tilaado laakiin cabsi yaraa jirto sida aad sheegtay maadaama warbaahinta dhan ay halkaa joogtay oo qofkii ugu horreeyey maadaama aad tahay ku wareysanayaan oo wadankii dhanna laga baahinayo adigoo talaalka lagu siinayo sax si wanaagsan waan gartay marka waxaad iga warantaa waxaad sheegtay hooyada inay yara diidaneed in warbaahintiiyo joogta meesha adigoo garabka laga tallaalayo oo garabkaaga la arkayo in aysan yara jeclaysan markii horeba sideebaad ugu qancisay hooyo inaad noqoto qofkii ugu horreeyey ee tallaalka COVID-19 la siiyo ee gobolka Alberta qofka ugu horreeyay maxaa noqonaya dhahday
qofka ugu horeeya maxaa noqonaya saas ay dhahday waxa dhahday inuu dadka oo daqooda way iska qaadi karaan laakiin dhalinyarada inay iska jiraan waayo because Facebook ay ka maqashay dhalinyarada wuxuu joojinaya inay ilmo dhalaan waxaan u sheegay hooy macaan ilmaha ilaahay oo ka imaadaan so waxyaalo badan aad jooji karo like researchka baarista waxna maka helen inuu vaccinekan joojinayo inaa ilmo dhali karto soomaalidu way ka baqaan tallaalka badankood iska daa COVID-19 waxaa la sheegaa in kan loo qaato hargabka flu shotka laftiisu inaysan u badnayn dadka inay qaataan oo soomaalida ay ku yartahay inay qaataan soomaalida inaad adiga noqoto qofka ugu horeeyay oo gobolka dhanba Alberta tallaalka la siiyo fariin noocee bay u gudbinaysaa jaaliyada soomaalida dadka see loo sheegay ha ka cabsanin tallaalkan ma aqaan because community waa taqaantaa dadka like sida u sheegtay hataa kan caadiga ma qaadanayaan so kan hadaynan qaadin like wax badan kala xun soo imaana hadda Edmonton kaliya iyo xataa Calgary meelaha oo COVID ugu badan waa North East waa meelaha Soomaali ay ugu badan yihiin so dadkeena inuu talaalkan qaada ka fiican laakiin